bal qiyaas garaash boodh leh oo ku yaalo magaalo yar oo California ah. Halkaas oo urta birta iyo fikradaha cusubi ay hawada ka laalaadaan. Waa halkaas goobtan suuban. In sheekada soo jiidashada leh ee mid ka mid ah maskaxdii kacaanka ee wakhtigeenna ay ka bilaabato. Steve Jobs. Horaantii 1970kii Meeyadii Jobs, oo uu weheliyo saaxiibkii Steve Wozniak, ayaa wax ka qabtay mashruuc noqon lahaa tiirarka dada dhijitaalka ah. Si wada jir ah, waxay ku dhaleen Apple i garaashkan ay ka buuxaan xamaasad iyo riyooyin geesinimo leh. Laakiin tani waa bilowga sheeko aan caadi ahayn. Laga soo bilaabo abuurista Macintoshkii ugu horreeyey ilaa bilowgii kacaanka ee iPodka. Iyada oo loo marayo kor u kaca iyo hoos u dhaca xidhiidhkiisa murugada leh ee uu la leeyahay Apple. Sheekada Steve Jobs waa safar shucuur ah oo aad u daran. Sumcadda guulaha iyo caqabadaha dib u qeexay warshadaha tiknoolajiyada. Si adag u qabo sababtoo ah waxaan ku dhownahay inaan u dhex galno adduunka aragtida Steve Jobs. Halkaas oo hal abuurnimada, naqshadaynta iyo xiisaha ay isugu yimaadaan si ay u abuuraan sheeko ka fog kombiyuutarada iyo qalabka. Waa tacabur qaabaysay nolosheenna dhijitaalka ah oo sii wada dhiirigelinta jiilalka oo dhan si ay u riixaan xuduudaha mala awaalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa ka dambeeya dhaldhalaalka soo bandhigidda badeecadaha astaanta u ah sheeko bani'aadminimo oo soo jiidasho leh. Shaqooyinka oo leh shakhsiyadiisa ka kan dhammaystirnaanta waswaaska ah iyo indho fiiqista naqshadaynta, labadaba waa la ammaanay oo la dhaleeceeyey. Ka tegistiisa qasabka ah ee Apple, tacabka badan ee nexti, iyo soo laabashadiisa guusha leh ee uu u beddelay Apple shirkad caalami ah oo hormuudka ah. Dhammaan cutubyada soo jiidashada leh waa sheeko guul iyo guul darro, xamaasad iyo rajo la'aan, taas oo dhaaftay adduunka ganacsiga si ay u noqoto sheeko caalami ah. Shaqooyinka wakhtiyada uu naftiisa ku riixo xadka, kartida uu u leeyahay inuu fikradaha u rogo xaqiiqada, iyo saamaynta uu ku leeyahay habka aynu u noolnahay, u shaqayno, iyo wada xidhiidhka ayaa sheekadan ka dhigaya cashar dhiirigelinaya. Haddaba u gal safar maskaxda hal abuurka ee Steve Jobs, oo ah nin baadi goobkiisii qumanaaneed ee aan naxariista lahayn wax ka beddelay wejiga adduunka casriga ah. Waa tacabur ka gudubta tiknoolajiyada si ay u taabato qalbiga. Waxa ay ka dhigan tahay in aad noqoto qof aragti dheer leh, hal abuur leh, iyo wax kasta oo ka sii daran, qof bini'aadan ah oo diida in uu la qabsado xaaladda taagan.